Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Muuqaalka maanta insha Allah waxaan kaga hadli doonaa application caan ah oo caalami ah oo dunida oo dhan laga yaqaano, kuwaas oo aan laga isticmaalin China ama aan laga ogolan China. Horta Chinese waa dadka ugu badan dunida, waa 1.4 bilyan oo qof. Sidaas darteed ma isticmaalaan oo dowladdu uma ogola applicationada laga soo waarido reer galbeedka. Applicationada dunida caanka ka ah ee ay leeyihiin dadkan reer galbeedka ah waxay leeyihiin applicationo iyaga u gooni ah oo isticmaalaan oo u beddela applicationadaas laga mamnuucay. Applicationka ugu horeeya waa applicationka Gmail. Applicationkan la isugu diro fariimaha, sidoo kalena aad u baahan tahay inaad account ka samaysato marka aad isticmaalayso meel ka mid ah baraha bulshada sida Facebook, Instagram, YouTube. Bahalkan loo baahan yahay mar walba kama shaqeeyo China oo lagama isticmaalo China. Dowladda China ayaan ogolayn, laakiin waxay leeyihiin application kale oo u beddela oo ay fariimaha isugu diraan oo sidoo kale ah. Applicationka labaad waa YouTube. Wait a minute, YouTube lagama ogola? YouTube lagama ogola China. Haddii aad YouTube galaydo China, macnaha haddaad safar tahay, YouTube maalinkaas aad gasho China ayaa kugu dambeyda. Haddii China aad ku nooshahayna, YouTube maba arkaydid. Oo haddaad soo kaxdo subaxii, channel-adii aad jecleed ee YouTube kuma daawan kartid waddanka China gudihiisa. Muuqaalkan xataa naftirkiisa kuma daawan kartid China. Marka haddaad YouTube muuqaal kusoo gudbido, Chinese-ku kuma arkayaan haddaysan meel kale joogin, oo YouTube ilaa ma daawadaan waddankooda lagama ogolee. Haddaad ka jafi rabto, waa ka jafi kartaa. YouTube waxaa laga mamnuucay China 2009, laakiin waxay leeyihiin application kale oo u beddela oo lagu magacaabo Youku. Application-kan wuxuu u shaqeeyaa sidii YouTube-ka oo wax walba wuxuu kaga egyahay YouTube, laakiin wuxuu kaga duwan yahay YouTube. Muuqaalada lasoo dhigana waa af Chinese, dadka waxa kusoo gudbiyana waa Chinese, halka laga isticmaalana waa China oo keliya. Adduunka kale lagama isticmaalo, sababtoo ah waa soo degsan kartaa Play Store-ka iyo meelaha waa ku arkay, laakiin af Chinese unbaa ku qoran. Haddaa af Chinese fahmaydo, waa application-ka ay ka gaarsiiyey, laakiin haddaadan fahmayn, kuma fiicna. Waxaana wax kusoo gudbiya Chinese, waxaana wax ka daawada Chinese oo keliya. Midka ku xiga waa Google, shabakadda ugu weyn ee wax laga baaro dunida oo dhan uguna caansan. Google What? Bro, what are you talking about, man? Google kama shaqeynayo waddanka China oo waa laga mamnuucay. Beddelkiisana waxay leeyihiin application ay wax ku baaraan oo lagu magacaabo Baidu. Application-kan Baidu wuxuu u shaqeeyaa sida Google-ka oo kale, waxaana laga isticmaalaa China. Waa application wax lagu baaro oo ay isticmaalaan dadka Chinese-ka ah beddelka Google. Application-nada ay ka mamnuucday waddanka China dadkeedana inta ugu badan waxay leeyihiin application-no u beddela oo iyagu ay isticmaalaan. Application-ka xiga waa Facebook. Application-ka ugu badan ee dadku ku wada xiriiraan dunida oo dhan. Application-ka Facebook kama shaqeeyo China oo lagama isticmaalo China, waxayna leeyihiin beddelkiisa application lagu magacaabo WeChat. Application-kaas ayaana u gala booskii Facebook. Application-ka ku xiga waa WhatsApp. Application-kan lagu wada sheekaysto, isagana kama shaqeeyo China, laakiin waxay isticmaalaan application-ka la yiraahdo WeChat. Kaas ayaa isna u gala isla application-ka Facebook iyo application-ka WhatsApp. Wuxuu leeyahay qayb sidoo kale lagu wada hadlo oo lagu wada sheekaysto oo u galaysa booskii WhatsApp. Application-ka ku xiga waa application-ka Twitter, abka lagu soo gudbiyo qoraalada ugu badan ee la isdhaafsado, yacni abka qoraalada iyo hashtag-yada iyo waxa lagu soo gudbiyo. Twitter lagama isticmaalo waddanka China, lagamana ogola. Isagana waxaa la mamnuucay 2009, isla sanadkii la mamnuucay YouTube. Twitter Chinese-ku ma daawadaan mana arkaan, laakiin waxay ka nasteen qoraaladii Trump ee waalaa. Chinese kama arag qoraaladii mathalan uu dhahayay Joe Biden waa ay waalan. Qoraaladaasoo dhan ma aanay arag oo way ka nasteen. Yacni Chinese-ku ma isticmaalaan haddii ay meel kale joogaan, horta oo Mareykanka iyo Yurub hadday joogaan oo isticmaali karaan, laakiin application-nadan waxay isticmaali karaan inta ay joogaan China gudaheeda. Waxay leeyihiin application u beddela oo lagu magacaabo Weibo. Wax noocaas ayaa la yiraahdaa. Application-kaas ayaa u gala booska application-ka Twitter. Isaga ayayna qoraalada kusoo gudbiyaan oo dowladdu wax ugu soo qortaa, halkaas ayayna ka akhristaan. Tii Soomaalida maaha ee af Ingiriiska kusoo qorayday sidii dad Ingiriis inay la hadlaydo. Ilaahu noo kaalmay.
applicationka xiga ahna applicationka ugu dambeeya waa applicationka Instagram. Applicationka lagu soo gudbiyo sawirada. Chinese-ka Instagram ma isticmaalaan, mana loo ogola. Chinese-ka Ronaldo oo 300 oo milyan oo followers haysta ma arkin. Ma arkaan abo. Waa ka nastaan. Sawiradaas la soo dhigay quruxda badan, yani qaarna qurux badan, qaarna iska qaab daran, qof walba soo dhigto. Iyagu ma arkaan oo wadankooda lagama ogola. Laakiin waxay leeyihiin applicationka WeChat-kan isagaa waa bad wuxuu weynin ka qabo. Facebook isagaa u gala booskiisii, WhatsApp isagaa booskiisii u gala, Instagram booskiisa isagaa u gala. oo application qayb sawirada lagu soo gudbiyo leh, qayb qoraalada lagu soo gudbiyo leh, qayb muuqaalada lagu soo gudbiyo leh, qayb lagu wada hadla wax walba leh. Waan applicationka ugu weyn ee Chinese ku sameeyeen oo leeyihiin oo isticmaalaan. WeChat-ka ayaana u gala booska Instagram. WeChat-ka xataa laga yaabaa inuu isticmaalo kale leeyahay oo aanan war u hayn. Applicationada aan loo ogolayn Chinese-ka ama China ba aan laga ogolayn intaa way ka badiyeen, oo waxaa jira qaar kale oo badan, laakiin kuwan ayaa kuwa ugu waaweyn uguna caansan. Mamnuuca applicationadan ay mamnuuceen sina faa'iido waa u leeyihiin, sina khasaaro waa u leeyihiin. Horta adduunka ay ka xirayaan oo YouTube mathalan markaa gasho waxaad daawo kartaa luqadda doonto iyo cidda doonto muuqaaladeeda, oo muuqaalo kala duwan oo adduunka daafihiisa ayaa helaysa. Laakiin applicationkooda markaa gasho Youku, yacni wax walba oo ku jira waa China iyo wax China ku kooban oo bis oo Chinese ma dhaafsiisana. Taas darteed applicationadooda maadaama iyaga ku kooban yihiin adduunka kale in badan wax badan kalama socon karaan oo way ka xiran yihiin. Dhibaatadaas ayuu leeyahay aan dhihi karaa qaabkaas. Laakiin dhanka kalena faa'iido waa leedahay oo ah inay isku kalsoonaadaan oo waxooda isticmaalaan, adduunkana ay waxooda gaarsiiyaan. Ciddu markay doonayso inay dunida hogaamido ama dawlad markay doonayso dunida inay hogaamido waa inay iyadu isku filaataa oo aanay mar walba u baahan in dibadda wax looga keeno oo wax walba iyaga loo sameeyo. Muuqaalka maanta intaas uu ku egyahay. Haddii aad markuu ugu horreeyo channelka halmaamin inaad subscribe saarto, like waa muhiim, muuqaalkana share garay oo asxaabtaada la wadaag. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.